soo dhawaada asxaabay ardayda waqti xaadir ka dhigata dugsiyada wadamada horumaray waxa booskii qalinkii buugga u buuxiyay kombiyuutarro casriya oo ay wax walba ka daalacdaan laakiin nasiib darro waxa jira meelo aanay ardaydu ka heli karin arrinkaas xalqadeenan maantana waxaan ku soo qaadan doonaa qisada ardaygii yaraa ee baraha bulshada qabsaday ee si daawo muuqaalka si aad u ogaatid faahfaahinta qisadan dugsi dawladdu leedahay oo ku yaala waddanka Brazil waxa dhigan jiray wiilkan 5 jirka ah ee lagu magacaabo Santiago isagoo ahaa fasalka 5aad xilligaas waxay ahaayeen qoyskiisu dabaqada hoose ee nolosha halkaas oo ay naadir ahayd inuu haysto qalabka casriga ah ee maanta cid walba guryaha u yaala intiina aanu galin qisada waxa lagu tiriyaa Santiago inuu yahay wiilkii afraad iyo guriga dambayskii ugu yaraa qoyska laakiin muuqaalkan lagu faafiyay baraha bulshada kadib waxa wiilkan yar noqday mid caan ah waxay ka bilaabmaysaa qisada wiilkani isagoo taagan meherad ka mid ah meheradaha elektarooniga lagu gado meheradan oo ku taala waddanka Brazil waxaana ay arkeen mas'uuliyiinta meheradu isagoo wiilkan yari meheradooda ku soo noqnoqonaya marar badan wiilkana maryihiisu may ahayn kuwa ladan oo duruuf ayaa ka muuqatay sidoo kalena shadadiisu waxay ahayd mid aad u doogowday xilligaas waxay bilaabeen mas'uuliyiintii meheradu inay maleystaan in wiilkan yari xadi doono mid ka mid ah taleefanada ama laptopada qaaliga ah ee dukaanka yaala sidaa awgeed markay arkeen wiilkan yar oo baqanaya taaganna qaybta agabkeedu yaalo shirkadda Samsung waxay bilaabeen inay la socdaan dhaqdhaqaaq kasta oo uu sameeyo intaa kadib waxa uu go'aansaday mid ka mid ah shaqaalihii meheradu isagoo waxba dareensiinayn wiilka inuu soo dhawaado si uu u ogaado waxa uu ku sameynayo aaladan uu wadwado waxaanu arkay ninkii shaqaalaha ahaa wax cajiib ah waxaana iska caadiyay in ardaydu badanka wax ka baaraan internetka gaar ahaan marka shaqada guriga loo diro laakiin Santiago muu awoodin arrinkaas oo qoyskiisu ma haysan lacag ay ugu iibiyaan wiilkan tablet ama iPad sidaa awgeed waxa uu wiilkan yari ku calool adeygay inuu aado meherada si uu uga soo qorto casharada tabletada la iibinayo ee meherada yaala intii uu ku guda jiray Santiago 10 daqiiqo ee uu casharada ka qoranayay tabletka waxa muuqaalkan ka duubay mid ka mid ah shaqaalihii dukaanka waxaanu tusay maamulihii guud ee dukaanka isagoo uga warramay qisada wiilka mulkiilihii meheradu waxa uu ka naxay xaalka uu ku sugan yahay wiilkan yari laakiin intaa kadib waxa uu ninkii shaqaalaha ku faafiyay muuqaalkii barta bulshada ku kulanto waxaanu muuqaalka ciwaan uga soo dhigay inkastoo ay haysato dhaqaale xumo haddana muu joojin wiilkan yari baaritaanka cilmiga iyo barashada aqoonta muuqaalkii si qayruxada ayuu caan u noqday waxaana daawaday in ka badan 7 milyan oo ruux waxaanay dadku ka dhiibteen faalooyin kala duwan kadib markii uu ogaaday maamulaha shirkadda Samsung qisada wiilkan waxa uu ugu tabarucay 2 tablet isaga iyo carruurta kale ay walaalayihiin si ay uga daalacdaan casharada waxaana qoyska wiilkan hadiyado iyo gunooyin ku filan siiyay dadkii uu saameynta iyo caadifada ku reebay muuqaalkaasi haddaad ka heshay muuqaalkan ha hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada taabatona subscribe si ay ku soo gaaraan muuqaalada dambe aan soo gelinaa